cajiib aniga ayaa alaabtan u cajabay runtii waan ka faa'iideeyey waxaan jeclaystay inaan idinka faa'iideeyo waa alaab cajiib ah wejiga haddaad caata ka tahay alaabtan marso amba lugaha amba gacmahaba haddaad tahay dadka wejiga cayilan ha iskugu dhowaanin alaabtan waa alaab dabiici ah oo aad iyo aad wejigaaga kugu cayilin doonta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada walaalaha qaaliga ah dhammaantiinba meel kastoo dunida dacaladeed aad ka joogtaan intaynan muuqaalka u gudagelin waxaan si sharaf la kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe ii saarto muuqaalkana aad like garayso siina share garayso insha allahu tacaala waxaan dileeyahay walaalaha qaaliga soo dhawaada si aad u fahantaan muuqaalka bilow ilaa dhammaad fiirso runtii muuqaalkan waa muuqaal aad iyo aad u faa'iido badan waxa weeyaan waxa su'aalo badan ayaa la soo weydiiyey waxaan jeclaystay inaan ka soo jawaabo waxaa la yidhi wejiga maxaad ku cayilisay waxaan jeclaystay maanta markaa alaabtan ku cayiliyey inaan idiin soo bandhigo walaalaha qaaliga soo dhawaada meel kastoo dunida aad ka joogtaan waxaan jecelahay wixii faa'iido ii ah aan ka faa'iido inaan idiin soo gudbiyo saad aragtaanba halkan waxaan ku shubay waa malqaacad xulba ah xulbad shiidan ayaa soo qaadanaysaa iyo malqaacad waxaan ku daray caano boodha ah waad aragtaan xulbada shiidan amba ta ay mudhaha aba soo qaado oo shiido haddii kalena iyada oo shiidan oo diyaarsan iska soo iibso kadib malqaacad baan ku shubay iyo malqaacad caano boodho white ayuu ku siinayaa isaga laftiisu maasha allah aad ayuu ugu fiican yahay wejiga saad aragtaba halkan waxaan ku daraynaa oo kale waa dacarta wejiga way kilin garaysaa finanka madmadowga alaabtaasoo dhan waxaan ku way diifinaysaa iyada lafteeda subaxda hore iska marso iyadoo khaliyata aad bay u fiican tahay marka alaabta markaad ku dartana maasha allah wejigaaga waad arki doontaa quruxda iyo dhadhalaalka oo maxaan ku dhahdaa uu yeesho haddaad wejiga caata ka tahay runtii waxaad marsataa weegiiba 4 goor marso waad arki doontaa isbedelka 2 wiig gudihii si uu kugu noqdo wejigaagu saad aragtaba waxaan ku darayaa vitamin E gaasina aad ayuu wejiga ugu fiican yahay isaga oo khaliyana waa la iska marsadaa walaalaha qaaliga ah waxaan ku daray saad aragtaba vitamin E ga ayaan soo gooyey xabadaas ayaa kugu filan waad ku darsanaysaa marka intaad qooshatay inta waxaan ugu talagalay inaan gacmaha iyo wejiga aan mariyo saad aragtaba waxaan ku darayaa waa biyo 2 malqaacadood oo biyaan ku darsanayaa haddana wax adayga ka dareemana waan ku dari doonaa insha Allah gadaal ayaan ka dari doonaa kadib si fiican isku dhexgeli waxa weeyaan orfeolochels iyo vitamiinkii iyo caanihii iyo xulbadii dhammaan saad iskugu laaqaysaa dhammaantoodba maasha allah xulbadan wax weeyaan wejiga waad naqashay haddaad laakiin aad 3 shay oo kale aad ku darto kushkush ayaad noqonaysaa haddaad wejiga aad ka naacsan tahay biliis waxaan kuu sheegay inaad isku marsan waayo aad ayay kugu sii naaxinaysaa wejiga aadka u sii naaxaanada u foolxumaad noqonaysaa markaa tartiib haddaad wejiga ka cayilan tahay oo dhexdhexaad ka tahayna weegiiba 1 mar iska marso waayo ku nadiifinaysaa waana ku qorxinaysaa runtii laakiin istaba joog wiig haddaad 4 goor aad marsato runtii aad ayuu wejigaagu naaxayaa maasha allah waad aragtaan asxaabteeda qaaliga ah waan si fiican ayaan isku soo dhexgeliyey waad aragtaan saas ayay noogu soo baxday kadib wejiga ayaa soo nadiifinaysaa anigu weegiiba waxaan marsadaa 1 mar ma doonayo in wejigu aad iga sii cayilo moogtiin marka weegiiba 1 maalin ayaan qooshtaa oon iska marsadaa waayo dhammaanadeedu aad ayay u sii naxnaxayaan haddaan mariyo marka waxaan doonayaa inaan dhexdhexaadkaan iska ahaado walaalaha qaaliga ah marka iska marsada haddaad doonayso wejiga dhammaanadu aad kugu sii naxnaxaan weegiiba 4 goor iska marso haddii kalena weegiiba 1 mar iska marso insha allah sad aragtaba wejiga waad soo nadiifinaysaa kadib si fiican ayaad marsanaysaa sanka anigu waan ku khafiifiyaa aad uguma badiyo haddaan aad ugu badiso waxaa dhacaysa in sanku ku weynaado moogtahay marka sanka markaad marinayso in yar iska khafiifa oo ku nadiifiso uun iska marso laakiin inta kale aad ugu badi maasha allah asxaabteeda qaaliga waad aragteen aad iyo aad maxaan ku dhahdaa inaan ila joogta ayaa badanka marsata marka aad ayay uga faa'iiday marka waxaan jeclaystay inaan idinka faa'iideeyo anigu inaan intaa wax ka sii badan aan wejiga ka sii naaxiyo ma doonayo ma fahanteen walaalaha qaaliga waxaan ku leeyahay alaabtan waa alaab cajiib ah oo dabiici ah oo naxnu ku yeelay waxun bay kugu faa'iideynaysaa marka iska marso haddaad doonayso inaad wejigaaga aad u sii cayiliso isbuuciiba 4 goor amba 3 goor waad iska marsan kartaa maasha allah
way markaa kugu qalasho waxaad samaynaysaa biyo ayaad ku qoynaysaa marka kugu qalasho aad ayaad wejiga usoo kogayaa marka kugitaankaas wuxuu faa'iideynayaa wejigii ayuu saa usoo nuugayaa uu soo kala bixinayaa marka waad qoynaysaa tuwaal ayaad marka dambana sidaa aad ugu marinaysaa tuwaalkaas ayaa maxanaha kaa wada qaadi doona dhammaantiin waad aragtaa markaan insha allah kamaradan ka dhex baxo ayaan insha allah si fiican aan isku wada gaargaarsiin doonaa walaalaha qaaliga waxaan leeyahay ka faa'iideyso aan muuqaalkan walaasha amba saaxiibadaada wejiga caatada leh faa'iido ayuu u leeyahay muuqaalkan u sheegay muuqaalkana like-ta iyo maxaan ku dhahay share-ta insha allah igu qabto waad mahadsantihiin waxyaalo badan oo ka faa'iiday oo timaha ana insha allah waan idin soo gudbinaya walaalaha qaaliga waad aragtaan maasha allah commentiga ayaa badanka instagramka aad layga soo weydiiyo leeyahay wejiga maxaad ku naaxisay anu ismama lihi wejiga aad uga naaxsan tahay haddana waxaan ku uri waan insha allah waxaan samayn doonaa weegiiba amba labada weegba mar baan marsan doonaa inta wax kasii badan dee cayilkuma afoon xumay noqonaysaa marka laakiin qof waa jooskiisa haddaad jecesha weji cayilan oo aad u cayilan baashan baso oo waxaan ku marsan mar walba weegiiba 4 goor iska marso waxaan ku weji cayilan oo aad iyo aad ayaad yeelanaysaa walaalahay qaaliga intaasaan idinkaga tegaya khayr badan baan idin rajeynayaa muuqaalka sii share gareysina la gareeyay assalaamu calaykum